waxaa la yiri familkan ayagoo yacni caadi u nool oo noloshoodu ay dabiici iska tahay waxaa dhacday habeenada ka mid ah in boolis ay usoo garaaceen albaabka weliba si xoog ay usoo jebiyeen kabacdi markay booliskii soo galeen waxay la kulmeen 3 canug oo markaasi waa maxamed iyo hishaam iyo islaam oo markaasi meesha guriga hortiisa ah ama albaabka hore ama yacni saas markii albaabka loo soo galo ayagoo isaga ciyaaraya kabacdi booliskii waxay qaqabteen familkii iyo ilmihii waxay geeyeen qaybta dambi baarista ilmihii marka waxay ku dhawaaqayeen aawo hooyadeena rabnaa inaan aragno laakiin booliskii waxay ku dhaheen 3 canugba hooyadiin ma ahan aabihiina ma ahan 3 canug ee familkoodii inta laga kaxeeyey ee boolisku ay habeenimo qaqabteen ay dhaheen hooyadiina ma ahan familkan aabihiina ma ahan aaway familkoodii runtii qisadani waa qiso aad iyo aad u murug badan waa qisada casiisa bintu ibliis aan isla aragno assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawow janalkayga ayaan goobdoon waa mar kale isku soo noqod wanaagsan iyo muuqaal kale cusub ama qiso kale cusub fadlan haddaa igu cusub tahay subscribe iyo saar ka mid noqo asxaabtayda haddaa hor ila joogtana like iyo saar waana mahadsantihiin dhammaan walaalaha ku xiran channelkayga meel walbo aad joogtiin waxaan ilaahay idinkaga rajaynayaa nabad iyo caafimaad inaad ku noolaataan asxaabta cusub ee kusoo biirtay channelkaygana waxaan leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada channelku waa channelkiina waa mar kale iyo muuqaal kale cusub ama qiso kale cusub qisadayna maanta waxay dhacday sanadku markuu ahaa 1992 qisadan waxay ka dhacday wadankan aan ku noolahay ee Masar qisada naagta ay qusayso ama iska leh qisadan magaceedu waxaa lagu magacaabaa Casiisa bintu Ibliis qisadeeda naagtani waxa ay tahay qiso runtii rucbi ama cabsi ama muruga leh waxaa la dhahay Casiisa ayadoo 17 sano jirta ayay guursatay ninkeedana waxaa lagu magacaabaa ama lagu magacaabi jiray Saciid waxaa la dhahay gabadhani markay guursatay in xoogaa markay iyada iyo ninkeedu isqabeen aysan wax ilmaa dhalin dan markay ilmihii ay dhalin waxaa dhacday in dadkii ama xaafadii ay markaasi ay deganeed in qof walba uu yiraahdo Casiisa maxaa kugu dhacay maxaa ilmo u dhali weysay ma dhaliis ma tahay ilmo ma dhalaysid miya waa sida dadka annaga xataa Soomaali haddaan nahay shu'uuna aanan loo dirsan aan galno oo qofka markuu aroos ka soo baxo uu xoogaa joogaba la yiraahdo haye ilmo ma dhalaysid miya uur ma yeelatay siyaada ma jirtaa maxaa kugu soo kordhay ilmo ma soo socdaan iyo su'aalo nooc kala gabadhan marka waxaa la dhahay su'aalihii ay dadka mar walba weydiinayeen way dhibsatay taas waxaa u sii dheereedaa la dhahay in familka ninkeeda ay aad u naceen ayna u isticmaali jireen qaab shaqaale ah maadaama naagtani aysan wax ilmaa u dhalin ninkan qabo dan naagtan markay dadkii ay su'aalihii ay mar walba weydiinayaan wax ma dhalaysid miya ma dhaliis ma tahay waxay go'aansatay bal inay dhakhtar iska soo fiiriso sida qof walba markii yacni awlaad dhali waayo oo bal dhakhtarka aaduu is soo jakimo dan waxaa dhacday in gabadhii ay dhakhtar aaday markay baaritaan suubisay ninkeedii iyadoo dhakhtarkii aadeen in nasiib darro lasoo dhahay waxaa tahay qof madhaliisa oo aan waxba dhalaynin dan marka waxaa dhacday hadalladii dadku ay mar walba dhahayeen kamaysan joogsan laakiin markii dambe waxay shaacisay in Casiisa ay tahay qof aan waxba dhalaynin kabacdi markaa dadkii oo dhan ama agaarkii ay deganeed ama xaafadda ay deganeed oo ahayd Iskandariya oo ah magaalo ka mid ah ama xaafad maaha waa yacni hadda anigoo kale Qaahiraan jooga Iskandariyana waa meel aad nooga fog soo waa gobol marka waxaa dhacday in Iskandariya oo dhan ama naaxiyada ay markaas ayada deganeed in ay u sheegtay inaysan waxba dhalaynin oo dhakhtar ay tagtay dhakhtarkuna uu ku yiri adiga waxaa tahay qof aan waxba dhalaynin bacdeen marka dadkii intaasi kumaysan ekaanin oo su'aalihii bini'aadamka waa aragteen oo iska su'aalo badan yihiin oo iska war badan yihiin gabadhii waxay bilaabeen haddana inay sidii oo kale ay dhahaan markay wadada maraysaba ma dhaliis waaye wax ma dhalayso waa qof aan waxba dhalaynin dan marka waxaa dhacday in naagtani ay ku fakarto yacni aqligeeduna uu siiyo fal wuxuushnimo ah oo yacni maskaxiyan tahay in qofka bini'aadamka ay ka daadegto waxay ku fakartay dadkan mar walba waxay ku leeyihiin ma dhaliisaa tahay waxba ma dhalaysid
farxadaadii oo dhanna waxay yacni raacday inaadan waxba dhalaynin. markaasi waxay ku fakartay inay dadka ka dhaadhiciso inay wax dhalayso ciyaalna soo xado. bacdeen marka waxay suubisay oo ay isaga dhigto ilmahaas inay ayada dhashay. bacdeen marka waxay suubisay ayada iyo ninkeeda iyo gabar walaasheeda ay guriga iskula noolaayeen aaqudadii dejiyeen. ninkeedana wuu ku raacay, walaasheedna way ku raacday. waxay tiri ilmaan soo xadayaa, ilmahaasna waxaan ka dhigayaa inaan aniga dhalay. kabacdi marka waxay bilowday inay dadkii oo dhan u shaaciso aniga uuraan yeeshay, hadda kadib ilmaan dhalayaa, hadda kadib hooyaan noqonaa. waxay bilowday caloosheeda markii calooshu ay soo baxdo oo xilligii la gaaro calooshu ay soo muuqanaysay inay marooyin gasho jirtay. markay biluhu bataanba inay marooyinka sii siyaadi jirtay. markay bilba bisha ka dambe kasii siyaadaysaba inay isaga dhigi jirtay inay bisheedii sii weynaatay. dan marka wuxuu waqtigu isguraba waxaa la gaaraa xilligii laga rabay inay ilmo dhasho, ilaan beentu way raad gaaban tahee. kabacdi marka waxay suubisay markay 9 bilood gashay xilligii ay ilmaha dhali laheyd ayaa waxay qudaysay in isbitaalada ku yaala iskandariya ama gobolka ay ayada deganeed. axmed waa gobol soomaha iskandariya. iskandariya gobol waa sax magaalada miya? magaalada iskandariya oo ay ku nooleed waxay samaysay in ay raadiso isbitaal ay ilmaha ka soo xadi karto. kabacdi marka waxaa dhacday ilaa markii dambe ay heshay isbitaal lagu magacaabo ashaadbi. isbitaalkaasay waxaa u fududaaday inay canug ka soo xadi karto. dan isbitaalkii ayaa waxaa galay ayada, waxayna hore u wadatay walaasheed iyo ninkeeda. ilaahay amarkiis waxay isbitaalka hortiisa ama qayb isbitaalka ka mid ah ay kula kulantay naag markaasi canug dhashay oo yacni markaasba umul aheyd oo ilmo yariisa wadatay oo yacni xaaladii umushii daciifnimadii ay ka muuqato oo ninkeeda baadigoobaysa. dan waxaa dhacday inay isaga dhigtay in ay caawinayso oo waxay ku tiri kaal anigaa ku caawinayo, ninkaagina anigaa kula raadinayo. marka waxay ku celisay qolkii naagtan ay kasoo baxday. canugina waxay tiri anigaa kuu qabanaye keen. naagtani way aamintay oo marnaba niyadeeda maysan gelin canugaagaa lagaa qaadanaa. dan markay naagtii qolkeedii ku celisay ayay waxay ku tiri canuga anaa sii haynayo, ninkaagana waa baadigoobaa. laakiin nasiib darro waxay la soo baxsatay canugii yaraa. kabacdi ayada iyo ninkeedii iyo naagtii oo ayada la dhalatay oo bannaanka labadooda ku sugaayeen waxay soo baxsadeen oo canugii soo qaateen. waxay sii diyaarsadeen subxaan allah oo sii qudaysteen inay umuliso u wacdaan. marka alasey marka salaada subax oo kale ay yacni intaas meeshay ku gambanayeen ama ku dhuubanayeen qisada kuma jirto. waxay yacni sameeyeen inay xilligaas gurigooda kusoo noqdaan. umulisadii u wacdeen. waxay umulisadina qudada ama sheekada ka dhaadhiciyeen in naagtan ay foolanayso, xanuun haayo, marka canuga ay guriga uga dhaliso. umulisadii way aqbashay, kulley laaluushii waxbay siiyeen. umulisadii markay aqbashay waxay iska dhigtay naag foolanayso. habeenkii oo dhan way cabaaday, dariskii ismaqashiisay, ninkeedii ag joogo. almuhiim markii dambe naagtani waxay dhashay canugii koowaad ee markaasi dhashay waxay ugu magac dartay islaam. waxay ugu magac dartay buugga macnaha ka fiirsanaa. waxay ugu magac dartay islaam. bacdeen waxay dhigatay xaflad innaba aan caadi ahayn. dadkii oo dhanay isugu wacday, way casuuntay, calashaan waxaa u dhashay ay ka wadaa wiilkeedii koowaad. dan markay xafladdii dhigatay waxaa ka yaraaday hadalladii xoogaa yacni dadku ay dhihi jireen jaa naagtan madhaliisnimadii way ka baxday. laakiin nasiib darro bini'aadanku sidiisaba maamaadu waxay ahayd bini'aadanka sidiisaba inaan la qancin karin. qaayatunaas laa tudrak. haddaad dhan ka qancisid dhan kale kaa soo gelayaan, dhankan haddaa ka qancisid dhan kale kaa soo gelayaan. markii dambe marka waxaa dhacday 3 sano kadib markuu canugii koowaad ay soo xaday, 3 sano uu gaaray in haddana la bilaabay canugan keliyahaad ku koobmaatay, canug kale ma dhalaysid, khalaas waaye, awal ma dhaliisaa ahayd, midkaan le markaan kusoo koobmaysaa. laakiin haddana waxay ku fakartay inay haddana mid labaad soo xado. bacdeen ayada iyo ninkeedii iyo walaasheed oo qudada mar walba isla dejinayay haddana waxay raadiyeen isbitaal ay haddana mar labaad ka soo xadi karaan canug. isbitaaladii markaan xoogaa waxaa la adkeeyey
amnigiisii ilaa markii dambe ay heleen isbitaal. markaan marka waxay iska soo dhigtay inay kalkaalisada isbitaalka qayb ka mida tahay. waxay gashatay yacni dharkii oo dadka ay gashtaan kalkaalisooyinka. bacdeen ayaga waxay tiri bannaanka igu suga. dan waxaa dhacday markay kalkaaliso iska dhigtay inay la kulantay hooyo haysata 2 canug oo mataana ah. hooyadiiay marka u tagtay waxay tiri canugan waa soo jikimayaa qaybta oo caafimaadkan geynaya. marka waxay tiri waan kuu soo noqonaa. laakiin isla markiiba waxay la soo baxsatay canugii. ayagii oo bannaanka kusii sugaya waa ninkeedii iyo walaasheedii waxay hore u soo raaceen una soo qaateen canugii mataanka ahaa. canugaas marka waxaa lagu magacaabaa maxamed. kii hore islaam u ahaa kana waxaa lagu magacaabaa maxamed. bacdeen marka waxaa dhacday canugii markay soo qaateen sidii caadada u ahayd naagtan haddana waxay soo kireysatay isla umalisadii gurigii waxay isaga dhigtay inay dhalayso. dariskii waxay ka dhaadhicisay cawada waa fuushayda. kabacdi waa dhalay. kabacdi xaflad waxay dhigatay qurux badan. waxay isugu wacday dadkii oo dhan. canugeygii labaadaa ii dhashay. khalaas dadkii waxaa ka dhaadhacday inay naagtan canugii labaad Casiise ah uu u dhashay. dan marka waxaa dhacday markii canugii labaadna ay xafladii iyo adduunkiiba ay isla kala kicisay oo hooyadii mar labaad ay hooyo noqotay in markaan loo diyaar garoobayo canugii saddexaad. dan marka waxaa dhacday balmay labadan isaga ekaato. kabacdi waxaa dhacday in canugii saddexaad qaabkii ay ku soo xadi lahayd inay raadiso. laakiin markii dambe waxay ku fakartay maadaama ay Iskandariya degneed inay Iskandariya dhan ka soo guurto ay magaalo kale u guuraan. guriga oo Iskandariya markaas ku yaalana inay iska iibiyaan. kabacdi marka waxay iska iibiyeen gurigii Iskandariya ku yaalay. waxay degeen magaalo kale. qisada ma ka arkin magaalada kale ay degeen. kabacdi canugii saddexaad ee waxay raadisay sanado kadib qaabkii ay u soo xadi lahayd. markaan waxaa la adkeeyey dhammaan amniga wadanka Masar gaar ahaan isbitaalada maadaama ay sii farabateen ilmaha markaasi waalidkood ay baadgoobayaan oo isbitaalada laga xadaayo oo marba markasii dambeyso isbitaalka laga xadaayo. kabacdi marka waxaa dhacday markaan waxay istiri allay lehe isbitaal markaan ma ka raadi kartid maadaama 2 jeer isbitaal ka soo xaday markaan suurtagal maaha inaad isbitaal ka soo xadid. naagtan waa naag shaydaamad ah oo loogu magac darayba bintu ibliis. kabacdi marka waxay suubisay maalin maalmaha ka mid ah oo barqo ay tahay ay waxay suubisay magaaladii ku wareegtay ilaa markii dambe ay aragtay naag masaakiin oo sidata canug markaas wili umul ah. marka dad waxaa jira masaakiin ah oo ilmaha aad isdhehaysid canugan banaanka say ugu soo bixiyeen yacni wadada ku wato ama qaarkood ay la tuugsanayaan ama qaarkood yacni duruufuhu ay soo bixiyeen qaarkood ay ku shaqaysanayaan. saasaa adduunyada iska jirta. dan marka naagtii waxay ka dhaadhicisay inay tahay hay-ad u gargaarta ilmaha. canugan maxaa waaye diifta ka muuqato. canugan waa tabaalaysan yahay. waxaan rabaa inaan ku caawiyo. soo bax waxaan ku geynayaa isbitaal daawo iyo adduunyo ku soo siinaayo. canugaaga dhaqaale kuu siinaayo. waxaan ka socdaa hay-adda tabarucaadda carruurta. naagtu waa qof iska masaakiin oo hadda la yiri tabarucaad iyo adduunyaan ku siinaayo way raacday. bacdeen markay raacday isbitaalkii geeday naagtan dar alla waaye. isbitaalka markay geeday waxay tiri hala jikimo naagtan dhiigeeda iyo daciifnimadeeda iyo macnaha gargaar ha loo suubiyo. dhakhtar haddaad qof geedid oo meeshii lacagta soo dhiibtid oo aad tiraahdo qofkan u gargaar qofkina uu qalbaan iska iyo waxba ka ogeyn wuu u gargaaraa. dhakhtarku wuxuu bilaabay inuu naagtii caawiyo. alla ilaahay naagtan waxay istiri naagtan way ku caawinaysaa waaba hay-ad gargaaroo laguu soo diray. dan marka waxay suubisay waxay markan ay maadaama ay naagtii ku hubsatay dhakhtarkii soo qaadatay canugii yaraa oo ay tiri asagana waxaan la aadaa qayb loogu soo gargaaro oo lagu soo tacaalo. way aamintay naagtii wax shakiya haba yaraatee maysan gelin. kabacdi canugii la soo baxsatay waxay la imaatay xaafadii markaan lama joogo Iskandariya xaafadeedii. waxaa marka bilaabatay canugii saddexaad oo magaciisu uu yahay Hishaam hooyadiis waxay noqotay hooyo laga furfur waayo canugeeda meel kasta oo boolis ah iyo meel kasta ay isdhigi karta canugaaga waa ka heli kartaa inay lugta saarte. waxaa bilaabatay marka booliskii inay baaritaan sameeyaan in meel walba oo yacni laisdhihi karo canugaas waa laga heli karaa in la baaro. laakiin nasiib darro wax haba yaraatee baaritaan ah ilaa ay hadda laguma helin. yacni ilaa canugaas saddexaad lama helin. marka ilaahay hadduu ku kashifaayo waxa waaye cajiibkeeday leedahay. qisadana waa qiso dhab ah oo xaqiiqo ah.
dan marka waxaa dhacday maalin maalmaha kamid ah waxaa isla kulmay naagtan lagu magacaabo Casiisa iyo naag hore u taqaanay oo Iskandariye markay deganeed oo madhaliis ay ahayd oo dhaqaatiirtu inay ka soo quusatay ogeed ay isla kulmeen waxay aragtay naagtii saddex anigu haysato haddaan naagana waa af dheerna sooma abaa shalay madhaliisaaba aheede saddexdan canuga iska daba keenta awoodtid maxaa waaye markaas waxay ku tiri anaa dhalay naagtii marka waxaa galay shaki tuhum weyn waxay istiri naagtan ilmahan ay wadato maba aysan dhalin ayada bacdeen marka waxay suubisay waxay balaqday ama ay yani shurdadu u sheegtay in booliska saad u taqaanid in naagtan aysan ilmahan dhalin booliskii marka waxay ku dhaheen see ku ogaa karnaa inaysan dhalin sees adiga ku xaqiijin kartaa war waxay tiri naagtan madhaliisa ahayd wax ma dhali jirin anigaa aqaanay Iskandariyan daris ku ahayn intaasoo sano wax maysan dhalin naagtan naag caan ah waaye familkeeda dhan way ogaayeen inay madhaliis tahay isbitaalka looga soo sheegay naagta marka waxay ku andacootay Casiisa ilmaha ilaahay yaa bixiyo ilmahan anaa dhalay ilaa markii dambe naagtina ay ka fuqoyso waa kashifaad meeshu ilaahay wax ka kashifaayo dan marka waxaa la isku raacay in la soo baaro Casiisa iyo ilmaheedii waxaa la geeyey meel lagu baaro si Casiisa iyo ilmahan inay dhashay DNA laga qaado laakiin macal asaf waa la garan waayey sorry intii baaritaanka lagu jiray oo boolisku ay markaasi ku doodayeen oo naagtana la soo helay oo telefishinadii oo dhan laga shaaciyey waxaa dhacday in canugii markaasi ugu dambeeyey oo ay soo xaday oo ay ka soo xaday naagta wadada maraysa ay ka soo qaadatay inay meesha imaatay maadaama canugeedii telefishinka warkii lagu sheegay naagtan ay soo raacday bartina ay imaatay naagtii marka waxay tiri canugeygii waaye anigaa dhalay aniga iga soo xaday hay-ad gargaare isaga kay dhigtay canugana waa canugeygii naagtan marka waa la weydiiyey Casiisa bintu Ibliis sax waaye tiri canugan ayadaa dhashay naagtii waxay halkaasi ka wadatay canugeedii oo ahaa Hishaam yaa soo haray marka waxaa soo haray Islaam iyo Maxamed kabacdi marka waxaa dhacday dadkii markii telefishinadii oo dhan laga sheegay qisadeedii ay noqotay qiso caalamul carabi oo dhan qabsato telefishinada laga sheego wariyaal naagta u imaadaan in isla markiiba ou imaaday qof sheeganayo canugii labaad inuu asaga dhalay kabacdi canugii labaad sidii ayaa familkiisii asagana ay ku qaateen maadaama ay dhaheen anagaa canugeenaan iska leh dan marka waxaa dhacday yaana idinkala kale iloobin canuga labaad oo ay isbitaalka ka soo qaadanayso oo kan koowaad maahan kan labaad waa canug mataan ah ma raba inaan qisada idinkala kale iloobo bini aadan ah waa iloobi karaa canug mataan ah waaye oo canugiisii labaad baa habartii dhashay haysato dan marka waxaa imaaday canugaas qof sheeganayo oo dhahay anigaa dhalay canugan waana canugeygii kabacdi marka waxaa dhacday yaa meesha ku soo haray maadaama canugii labaad la watay waxaa meesha ku soo haray halkii canug oo ugu horeeyey oo naagtani ilaa iyo haddana aysan sheegin inay iyadu yacni qof kale dhaleen oo ku andacoonayso canugii anaa dhalay waxaa la yiri sheeg canugan qofkii dhalay waxaa imaaday naaga fara badan niman fara badan caa'ilooyin fara badan oo sheeganaya in naagtan intaasoo ilmo ay ka maqan yihiin ilaa markii dambe la ogaadaba inay naagtan ilmaha qadafi jirtay ee maxadi jirtay ooba ahayd qof ilmaha ka ganacsata ama shabakad ama shirkad ilmaha ka ganacsata markii dambe naagtan xabsiyaa loo tixaabay markii xabsiga loo taxaabay waxay sheegtay in qudada aysan keligeed ku jirin in qudada ay la degeen ninkeeda iyo walaasheed bacdeen waxaa lasoo qabtay ninkeeda iyo walaasheed ayada waxaa lagu xukumay 7 sano oo xarig ah ninkeedana waxaa lagu xukumay iyo walaasheed 10 sano oo xariga maadaama ayaga ay yani ka qayb qaateen dan marka canugii waxaa soo haray ugu weynaa markuu soo haray waxaa sheegtay famil kale oo imaadeen familkii markay sheegteen isla markiiba ayadoo DNA iyo waxba la baarin waxaa la dhahay familkan ma asagaa canugan yani familkan miyaa canugan dhaleen waa Islaam oo ahaa canugii koowaad kabacdi waxay tiri iyagaa dhaleen sidii ayuuna ku wateen laakiin midda nasiib darada ah waxay tahay in Islaam oo ah wiilka ugu koowaad ay naagtani soo xaday inaysan familkiisu ahayn familka runta ee wateen wiilkii marka maamadan waxay soo haysatay 11 sano asagoo 11 jir ah ay sirtan ka shifmatay kabacdi waxaa dhacday
markay sirtii ka shifmatay inuu famil kale oo yacni iska sheegteen oo aynan dhalin inuu haddana dhowr iyo 10 sano la sii noolaaday waxaa dhacday marka wiilkani uu ka sheekeeyay qisadiisa telefishinada badanaa laga wareystay wuxuu yiri familkayga inaysan ahayn in badanaan ka shakiyay mar walba way cabiidin jireen nolol qurux badan kamaanan heli jirin way i rafaadin jireen wuxuu dhahay silac iyo kurbo iyo kadeeda igu dili jireen ilaa markii dambena wiilkani uu weynaaday uu nin weyn noqday uu guursaday uu 3 ilmood dhalay markii dambena wuxuu maalin maalmaha mid kamid ah ka maqlay hooyadiisa beenta labaad ee wiilkan wadatay inay ninkeeda isku dagaaleen oo ay dhahday ninkan waa soo korinay intaana soo la ekaysin halahan ka bacdi been ma sheegi karo annaga ma dhalin waa inaan iska burinaa markii dambena familkii wuu ka tegay xataa waxaa la dhahay wiilkan markuu guursanayay familkani kama qayb qaadan arooskiisa maysan garab istaagin gabadha uu guursanayay familkeeda xataa waxay dhaheen aaway ehelkaagii laakiin wuxuu dhahay ehelkayga iska daaya wax walba anaa baxsanaya hooyo iyo aabba anaa isku ah ehelna anaa isku ah markii dambe marka shakigiisii wuu sii batay ilaa markii dambe DNA uu yacni go'aansaday inuu ka qaado aabbahan isku sheegay inuu aabihiis yahay laakiin nasiib darro markii uu tagay dhakhtarkii uu DNA-gii inuu iska baara go'aansaday wiilkan ninkani maba ahan aabihiis bacdeen haddana waxaa u bilaabatay murug fara badan wiilkan wuxuu ka soo muuqday telefishinno fara badan wuxuu mar walba baadigoobayay aabihiis iyo hooyadiis xaqiiqada ah ilaa markii dambe uu ku soo laabtay Casiisa oo markaasi telefishinno laga wareysanayo wareysiga dhexdiisana uu ku oynayo uu leeyahay hooyaday aabahay ii sheeg dadka iga soo qaadatay ii sheeg ayada markii la wareysanayo way kala hadlee mar waxay leedahay anaa ku dhalay waa ku jeclahay wiilkaygiyaa tahay marna waxay leedahay war aniga familkaagii meel kuma ogi mana arag wiilkan mar walba uu naagtani ka codsanayo inay sheegto familkiisii xaqiiqada ah way ka labalabeynaysa marnaba umaysan sheegin familkiisii xaqiiqada ah markii dambe waxaa dhacday Casiisa xabsigii ayay soo dhamaysatay waxaa 7 sano xarigay soo dhamaysatay waxaa ku dhacay cudurka kansarka markii dambe wiilkii muusan quusan maalin maalmaha kamid ah si kasta markuu uga quustay si kasto oo xataa naagtan markay wadooyinka maraysa ay dadkii leeyihiin qof da'aha tahay waayeela tahay war wiilkan dadkiisa u sheeg war sirta ilaahayda u sheeg laakiin afkeeda yaa ka soo saari kara naag 7 sano xabsi soo gashay yaa afkeeda ka soo saari kara way diiday inay sheegto waxaa dhacday markii dambe maalmaha kamid ah guriga ugu tagay xilli habeen ah asagoo raba inuu tuugo wuu bariyay war ii sheegday familkaygii war heedhaq waxaa tahay qof waayeel ah war ilaa markii dambena ay yacni uu ka soo quustay inay familkeeda u sheegto dan marka waxaa dhacay wuu iska soo baxay xaafadiisa isaga soo socdo laakiin weli aanan dhaafin gurigii markaas uu kasoo deganaya ee Casiisa waxaa dhacday in jaranjarta ama يعني guriga fooqa sare inay iska soo tuurto Casiisa ilaa markii dambena meesha uu boolis soo gaaray booliskiina ay tuhun wiilkan lagu soo rogay in uu asaga ka dambeeyay dilka Casiisa laakiin ayadaa dabaqa iska soo tuurtay oo waxaa qirtay ciyaal markaasi ama ilmo meesha ku dheelay dabaqa hoostiisa arkayeen inay ayadu kaligeed isa soo tuurtay wiilkuna uu asagu markaasi sii socday wiilkii sidii uu asagana bilaa xabsi ku noqday intuu marka ay ayada iska soo tuurtaba wiilkan wuu u soo noqday gargaar uu u fidiyay ambalaasta marka intay ku sii jireen oo isbitaalka u sii wadaba waa intaysan dhiman oo wuxuu mar walba ku celcelinayay ayadoo sakaraad ah ii sheeg waalidkaygii waa ku baryaa familkaygii aaway ii sheeg eheladaydii inaan dadkayga aqoonsadaan rabaa laakiin naagtan waxay ahayd naag aad u arxan daran marnaba umaysan sheegin ilaa markii dambe la sheegay mar ay naftu ka sii bixaysay inay u sheegtay 3 magac ani 3 magac hadda ma xasuustay maxamed hebel kida waaye familkaaga ama aabaha soo wiilkan wuxuu baadi goob haddana u galay telefishinno badan u fariistay inuu familkiisii helo asagoo murug ay ka muuqato taas waxaa kaagan sii nasiib daran aabihiisii labaad oo beenta ahaa oo sheegtay oo markii labaadna markuu DNA-ga baaray yacni uu ogaaday inuusan dhalin inuu magacii kala laabtay wiilkii wuxuu halkaasi ku noqday qofaan magac lahayn qofaan ehel lahayn qofaan meel laga dhalay iyo wax dhalay aana wax aqoona u lahayn markii dambe waxaa dhacday maalin maalmaha kamid ah sida qisada lagu sheegay naag telefishin iska fiirsanaysa inay wiilkan qisadiisa aragtay danna ay tiri aniga canug mataanaha ii joogo mataankayguna canugaan uu egyahay isbitaalan la iiga xaday ilaa markii dambena ay sheegtay in wiilkani uu wiilkeedii yahay ayna isheleen laakiin nasiib darro waxaa la sheegay in wiilkan lagu magacaabay Islaam
bartiisa facebooka inuu qoraal kusoo dhigay in warkan la sheegayo oo ah inuu ehelkiisa iyo familkiisa dib ula wadaagay yahana wiil mataanahoo gadaal laga helay inaysan sheekadu saas ahayn laakiin ay been tahay wax DNA ahna uunan baarin naagtan DNA aan baara iyo canugan anaa dhalay ee sheegaysana inay been tahay wiilkan inuusan ilaa iyo hadda familkiisii helin sida qisada lagu sheegayo wiilkan wuxuu isku dayay meel walba ama lug walba wuxuu yacni meesha uu saari karo uu isdhihi karo familkaaga waad ka helaysaa ilaa markii dambena naagtii lagu magacaabay Casiisa ay dhimatay ayadoo aanan u sheegin sirta wiilkan maxay tahay marka adiga haddii aan ra'yigaaga ku weydiiyo maadaama naagtan 3 canug ay soo xaday 2 canug ay familkooda heleen wiilkan uu familkiisa helin sirta ay qarinayso maxay kula tahay ma dadkiisii leeyahay ayadu waxay sheeganaysaa inay ayadu dhashay oo canugan uu yahay canugeedii laakiin naagtani wax canuga haba yaraatee maysan dhalin adiga marka aqligaaga daawanay min fadlan waxaan ka codsanayaa inaad qaybta commentiga igula soo wadaagtid aqliyan siday kula tahay naagtan canuga ayada dhashay ma la isdhigi karaa wiilkan si madadkiisii oo laaydo ay laysay oo sababta ugu diideyso maxay tahay video kama soo qaadan karo meesha aan qisada ka soo xigtay laakiin sawirada aan idin la wadaagi doonaa insha Allah qisadan runtii wiilka markaad si dhaba u daawatid waa isku dayi doonaa videoyaashiisa inaan qaybta commentiga idin soo dhigo iyadoo carabiga si aad u daawatid hadaa carabi taqaanid qisadiisa runtii wiilka markaad dhageysanaysid aad yani murugta ay uga muuqataa sababtoo qof la yiri waalid ma lihid walaal ma lihid meelaha ka dhalata male qof hadana waalid uu yani u sheegtay anaa ku dhalay yiri hadana markuu DNA baaray waalidkiisa uu waayay subxaanallah يعني واقص آد وحنون بدن سو قصدان waxay noo cadeynaysaa in dunida ay wax walba ka jiraan laakiin waxa xaqiiqo ah way jiraan ama dalkeena hooy ha noqoto ama wadamo kale ha noqoto in ilmaha la kala xado ilaahay aan ka magangaleynaa canug aad dhashay in laga xado soo qisadii xanuunka badneed ama murugada badneed ama saameynta badneed ee Casiisa qisadeedii halkaas ayaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo haddii aad ka heshay qisadan waxaan ka codsanayaa inaad sii share garayso sidoo kalena like aad saarto waana ku mahadsantahay daawashada qisadan ama muuqaalkan tan iyo intaan middan ama mid kale oo qiso lamid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo